kusoo dhowaada falanqayn iyo odoros la xiriirta filinka filo qaybtiisa 9aad ee soo socota. waxaan waa falanqayn iyo odoros, marka fikradaada ka dhiiba adiga. maxamed amiin wuxuu la kulmayaa isagoo aad u murugaysan garyaqaan garaad oo ah garyaqaanka reerka dhan, reer baaslaawe. maxamed amiin wuxuu siinayaa warbixintii say wax u dhaceen, lacagtii la dhacay, asiga baxsan inay meel xun ka marayso, haddana bangiga ka yimid, wax kastaba ay yaalaan. sidoo kaleento maxamed amiin wuxuu u sheegayaa garyaqaan garaad in uu baaslaawe aabihiis yahay. marka su'aalo badan ayuu weydiinayaa. wuxuu leeyahay, markii ugu dambeysa boqorku u imaanaya waxaad ii sheegtay inuu aabbaha mooyin yahay, haddana waxaad ii sheegaa baaslaawe aabbaha inuu yahay. marka sidee ku dhacday? wuxuu leeyahay, oo ardayii hooyada tahay. marka wuxuu leeyahay, ardayo iyo hooyaday saaxiibo ayay ahaayeen. marka ardayii way isoo korisay, hooyaday ma aha. marka sidaa ula soco garyaqaan. garyaqaan garaad runtii dhowr su'aal ayuu weydiinayaa oo ku soo celinayaa maxamed amiin. maxamedna su'aalihi uu ka jawaabayaa. wuxuuna isku dayayaa in uu dejiyo maxamed amiin uu yidhaaho arrintaasi aniga ayaa galayo, bal iidaa. doctor canna aniga ayaa la hadlayo, weydiinaya xataa arrimihii la xiriiray dhacaankii disadaha ama d n adii laydinka qaaday halka ay ku dambeysay, maadaama doctor canna nin wanaagsan uu yahay. marka waxaan rabnaa inaan isweydiino, garyaqaan garaad ma heshiisiin doonaa ama dhexdooda ma dhigi doonaa maslaxo iyo walaalnimo isku keeni doonaa baxsan iyo maxamed amiin oo hadda kala taagan markii lacagtii la dhacay, oo baxsan 100% ay aaminsan tahay in maxamed amiin lacagta asiga uu xawishay oo kaan ku furtay, isagana uu leeyahay ma furan, alleh ka alla waaye. muxuu ku guulaysan doonaa garyaqaan garaad inuu isku keeno? waa midda koobaad. midda labaad, garyaqaan garaad maadaama nin garyaqaan uu yahay, maxkamadana si fiican u kala yaqaano, booliiskana uu ku xiran yahay, ma ka hortagi doonaa oo ma soo celin doonaa lacagtii la dhacay oo qolooyinka maafiyada ay dhaceen intaan lagala bixin accountka? garyaqaan qayb ma ka qaadan doonaa oo mala xiriiri doonaa agaasimihii bangiga iyo booliiskii iyo qaybihii ku howlacay oo lacagtaasi in la xanibo oo dib igu soo noqoto ma dhici kartaa? taas waan rabnaa inaan saadaalino xalqada soo socdo. qaybtaas noocaasi ma ku arki doonaa oo maxamed amiin iyo baxsan oo isku yimaado, garyaqaan garaad oo qayli wax ka qaato in macnaha ogolaado ama soo saaro maxamed iyo baxsan inay walaala yihiin. garyaqaan garaad ugu dambeyn wuxuu weydiinayaa magaca habarta ii sheeg. wuxuu leeyahay, habartay waxaa la yidhaahaa sitey. garyaqaanka wuxuu dib u soo xasuusanayaa marka dardaarankii baaslaawe uu kala dardaarmay. uu yidhi, maran xamar tegey, waxaan soo guursaday gabar la yidhaaho sitey qosol wanaag. marka garyaqaan markuu u sheego maxamed amiin garyaqaanka hooyadiis, garyaqaan garaad wuu ictiqaadaya. wuxuu leeyahay, sax waaye, aabbaha waxaan ka hayaa maqal iyo muuqaal ayaan ka hayaa oo aan duubay oo diyaar ah. marka halkaas waxaan ku ictiqaaday in uu yahay ama aan ogaaday in baaslaawe uu yahay aabbaha. taasi oo runtii qayb weyn ka qaadan doonta isku soo dhoweynta baxsan iyo maxamed amiin. dhinaca kale, maxay kula tahay in naa'if uu ku dambeyn doono aayihiisa dambo, maadaama najmi ay tiri nin naagtii kilidda u bixisay furay la'alligay aniga wax faa'iido oo ii haayo inaba yaraatee ma jirto, maadaama ay tiri. marka naa'if muxuu ku dambeyn doonaa mustaqbalkiisa? banaacduu ku soo dhici doonaa? najmi waxay tiri 3 bilood isii. waxaan filayaa aniga aragtiyaanteeda, adna aragteeda ka dhiibo. 3 bilood ee qabsan waxay tahay 3 bilood oo cuddada ay ka dhammaanayso saabiriin. kabacdi waxay rabtaa inay tiraaho amaanisii uurna malihi, oo sidaas asna awal uu ku raacay maadaama muddo u qabay saabiriin ee uur u yeelan. uurkaas ayaa lagu soo jiitay, iyadana uur malaha, habarteeda igu sheegtay. waxay leedahay nin naagtiisii kilida u bixisay furay, anigu wax uu ii haayo ma jirto inaba yaraatee. marka saabiriinna waxaa laga yaabaa qofti ma dhici doontaa naa'if inuu ku soo dhaco bannaan cidla ah. saabiriin ay ka tashato,
najmana bannaanka ay soo dhigto bal adiga fikradaada ku soo muxuu noqon doonaa aayaha naa'if runtii aniga waxaan u arkaa inuu noqon doono macnaha nin bannaan cidlo ku soo dhaco oo nafsigii saabilin uu ka galay ka soo baxo asiga iyo hooyadiisba oo asigana uu noqdo qof waxba aan haynin uu ku dhowaado xataa waali taas ayaan filayaa nafsigii uu galay in laga goy doono ayay ila tahay bal hadda aragtadaad maxay tahay kusoo darso